guddoonka gobolka saaxil iyo maamulka degmada berbera iyo sidoo kale maareeyayaasha dekedda caalamiga ee magaalada berbera iyo haamaha kaydka shidaalka ee berbera iyo xubno kale oo mas-uuliyiin ah ayaa waxay maanta si mug iyo miisaan la hambaliyeeyeen golaha guurtida Somaliland go'aankay muddo kordhinta ugu sameeyeen xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo taasoo muddo kordhin sanad iyo 10 bilood ah ay u sameeyeen waxaana mas'uuliyiintani oo bogaadinaya golaha guurtida Somaliland hadaladoodii kamid ahaa waxaan hambaliyaha halkan taageero uga jeedinayaa golaha guurtida oo ah golaha kaliya ee manbaca u noqoto Somaliland marka ay waqti yimaado mar walba oo waqti yimaado sidii loo dhisay waa golaha mar walba loo noqdo mar walba isagu xalka kama dambaysta keena runtii waxaan leeyahay hambaliyo waxaad gudateen waajib qaran marka labaad halkan hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin aan mareynaa golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland oo maanta xaqiijiyay sifaha sharci ee dawladnimo ee qaanuun ee dastuuri ee u baneeyay inay go'aan ka qaataan muddo kordhinta waqtiga ay ku dhawaaqeen waxaan leenahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa asiibsiiyay oo way dadaalkoodii waan ku asiibeen horta anigu ugu horeyn waxaan hambaleynayaa golaha guurta Jamhuuriyadda Somaliland xil gudashada wanaagsan ee ay ka sameeyeen arrinka iyo sida wanaagsan ee arrinkaasi ay muddo kordhinta dawladda iyo duruufo keeneen ee qabsoon waayeen doorashooyinku inay si wanaagsan oo qiimo leh ay arka u eegeen aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa waxaan leeyahay xil gudasho wanaagsan maanta waxaan halkan hambaliyo ballaaran uga diraynaa golaha guurtida iyo go'aankii ay gaadheen kordhinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud oo ku hambaliyeynayno muddo xileedka ay qabteen marka hore waxaan hambaliyo iyo bogaadin u diraynaa ama aan u dirayaa golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland go'aankii midhadhalka ahaa ama dhaxalgalka ahaa ee ay ku gaareen in muddada loo kordhiyo xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo Khalid Xasan Kharash telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.